su'aasheenna 104 waxa ay saa'iladani leedahay waxaan ahay hooyo xaas ah caruurna leh ninkayga waxaan uga soo tagay Afrika muddo 4 sano ahna isma arag inta kadib waxaan labadeenna go'aan ku gaadhnay inaan kala tagno uuna i furay furiinka kadib bil anigoo aan ciidada dhamaysan ayaan nin kale guursaday maxay diinta islaamka ka qabtaa horta haweenta haddii ay ninkeeda kala maqan yihiin oo iyagoo muddo kala maqan uu soo furo ama ka dhintaba maalintii uu furay ama uu ka dhintay bay ciddo bilaabaysaa macnaheedu sax ma aha muddaba maanaan is aragayseen uga ciddo tirsanaya waa shubha dadka qaarkood geli karto nin aan intaasoo sanaba kala maqnayn haddana i soo furay dee ciddadaan u gelaya maxay tahay waa arrin qalad ah markaa la furay ama ninku ka dhintay ayay ciddo bilaabaysaa gabadhan marka intaa inay fahansanayd baad moodaayo ciddadii wayba bilowdayba laakiin iyadoon dhammaysanin bay nin kala guursatay arrintaasina waa khalad biijmaaci alculamaa culimmada dhan baa isku waafaqsan inuusan guurkaa dambe sax ahayn qur-aanka kariimkuna waa tilmaamayaa masaladaasoo alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala walaa taczimuu cuqdata annikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajalah haweenta ciddada ku jirta ilaa ay ciddada dhammaysato ha guurininoo xadhig ha ku xidhina haweenay ciddada ku jirta haddii la meheriyo culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin inuusan meherkaasi wax jir ahayn marka ma asixin guurkaa dambe ma asixin ninkaas gadaal leedaha waan ka guursaday ciddadii anoo ku jira waxa idin dhex maray guur sharciya ma aha waa inaad kala dhaqaaqdaanoo ama laydinkala eriyo waa markaa kadib waa inay ciddo tirsato maxay tirsanaysaa in badanoo culimmada ka mida waxay qabaan ninkii hore oo furay oo isagoo ciddadiisa ay ku jirto ay guursatay ciddadiisii horta intii ka laabnayd bay la imaan dumarkana haddayba caado helaan waxay ku cidda tirsadaan dhiigga soo ma ama ka soo qaadna iyadoo hal dhiig heshay bay ninkan dambe guur ma dhihi karee laakiin muxuu isfarsamaysteen soo ma meeqaa laabnaa labaa laabnayd soo ma labadii dhiig ee laabnaa ee ninkii hore ciddadiisii ka laabnayd horta waa inay la timaado markay labadaa dhammaysatay kadib bay kan dambe isfarsamaysteen bay haddana ciddo gelaysaayoo 3 dhiigoo dambe haddana tirsanaysa markaa kadib ayay ninkay doonto guursan hadduu isagii iskeenana waa guur cusub iyo hawl cusub waah sidaasay qaban jumhuurtu oo guursan karaa bay leeyihin laakiin waxaa jirta riwaaye cumar laga wariyo oo dhahaya ninkaasi weligiiba ma guursan karo nin kale unbay raadsan mooye kaasi isaga baab uma furna maalikiyadana sidaa marayoo waxay yidhaahdeen maadaama uu wax farsameeyo khaldamay oo uu ka hormaray haweenaydii intayna ciddadii dhammaysanin uu soo hormaray ha la xirmaaniyo man istacjala shay'a qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi weligii ma guursan karay leeyihi riwaaya oo laga wariyo weye cumar ibn khataab radi allahu tacala canhu laakiin culimmada badankood waxay qabaan ciddooyinkaa markay dhammaysato kadib ragguu ka mid yahay raggaa soo doonahayuu ka mid yahay hadday rabto way guursan ehelkeediina uu ogolaado guurkoodaa dambana waa saxayaa bay qabaan wallahu aclam